wiilbaa wuxuu hooyadiisa ka codsaday inay u soo koobto khibradeeda nolosha iyo xikmadaha ay ka dhacshay waayo joogeeda. kadib waxay ku tiri ma dhageysan kartaa? wuxuu ku yidhi haa. markaasay tiri wiilkaygiiow weligaa ha ka hadlin dadka iyo waxyaabaha adigoon ogeyn ilaa aad ka xaqiijiso asalkooda. haddii uu qofka kuula yimaado war iska xaqiiji ka hor intaadan qaadan. wiilkaygiiow iska jir xanta iyo xumasheega, hana rumaysan wax kastoo la dhaha. haddii uu eebba kugu ibtileeyo cadow, kula dagaalan wanaag iyo ixsaan, maxaa yeelay wanaagga iyo ixsaanka ayaa ka awood badan cadowga. wiilkaygiiow haddaad rabto inaad ogaato xaqiiqda saaxiibkaaga dhabta ah, la safar, maxaa yeelay safarku wuxuu daha ka rogaa xaqiiqda qofka, wuxuuna faydaa muuqaalkiisa qarsoona, wuxuuna soo bandhigaa wejigiisa dhabta ah iyo akhlaaqdiisa. wiilkaygiiow haddii ay dadku ku soo weeraraan adigoo waddada saxda ah ku sugan, farax, maxaa yeelay waxay ku sheegayaan inaad tahay qof guulaystay oo saamayn leh. wiilkaygiiow markaad qof naqdinayso ku fiiri qofkaasi isha shinnida, maxaa yeelay shinnidu ma eegto ilaa wax wanaagsan mooye. hana ku eegin isha duqsiga si aadan ugu dhicin wasaqda. wiilkaygiiow darajada ugu wanaagsan ee nolosha waa runta, ogowna in beentu ay tahay xumaantii ugu xumayd. wiilkaygiiow sii naftaada wax kasta beddelkeeda, wax kastana u diyaari si aadan mid bahal ugu baryooto min agtiisa baryo sharaf dara ah. wiilkaygiiow ka faa'iidayso fursadaha aad haysato, maxaa yeelay fursadu ku soo laaban mayso mar labaad. sidoo kale ha cabsan, hana baryootan weliga. wiilkaygiiow ka carar dadka quusta iyo kuwa rajo xuma saadiska ah, weligaana hala fariisan qof baasaysi badan. hooyadii waxay hadalkeedu ku soo gabagabaysay wiilkaygiiow ugu dambeyn waxaan kaa rabaa inaad niyadsami ku qaabisho nolosha iyo arrimaheeda, weligaana ku farxin musiibo ay ku dhacday khayrkaaga. weligaagana waxa ka sheegin qof abuuristiisa, maxaa yeelay midna naftiisa ma abuurin. haddaad wax ka sheegto qof abuuristiisa waa adigoo ku jeesjeesaya allaha qaadirka ah awooddiisa.